maanta ay taariikhdu tahay 29 bishii tobnaad 2024 annagoo ka kooban kooxaha magacyadooda sheegi doono magacyadooda waxaan markaan ku qabanay saxaafadeed kooxahaas oo ugu horeyso kooxda la yiraahdo midnimo raadsan jasiira ama kingis batroolka madbacada jeeyo batroolka balkii gaadiidka bilaac horseed rajo saxafi heegan waxool raadsan Soomaali fruit golaha dhexe xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed 29 bisha tobnaad 2024 kadib markii aan muddo badan isku daynay in aan si hoose ula hadalno ama aan saxno maamulka xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waxa laga fursan waayay markii ay ka dhaga adeegeen in aan saxaafadda la wadaagno bulshada inteeda kale waxaa jira cabashooyin badan oo ku saabsan maamul xumo taas oo aan la wadaagnay maamulka xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed xafiiskooda arrimaha muhiimka ah aan rabno in aan la wadaagno saxaafadda xorta ah waxaa kamid ah codsiyo badan oo Congressku u direen maamulka xiriirka oo aan wax laga qaban ilaa iyo maantay codsigaas oo ah dukumiintiyo muhiim ah sida nuqulka shirarka Congressku in la wadaago Congresska maaliyadda warbixinta maaliyadda waxa kamid ah xisaabaadka bangiga in ay la wadaago Congresska maamulka xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed uu ka dhaga adeegay qodobka labaad garsoorayaal badan ayaa soo bandhigay dhacdooyin uu gudoomiyuhu ku lug leeyahay taas oo aan u wanaagsanayn ciyaaraha iyo guud ahaan maamulka waxaana soo jeedinay in garsoorka la nidaamiyo inta tartamada aan la bilaabin in garsoorka la toosiyo la saxo oo waxaa jira musuqmaasuq garsoor ayadoon la saxina in aan wax tartan la qaban karin musuqmaasuq garsoorka ayadoon la saxin oo ku lug leeyahay maamulkii xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed qodobka saddexaad waxaa jira xaqiiqooyin cadeynaya in faragelin toos ah lagu sameeyay dukumiintiga lahaanshaha naadiyada heerarka kala duwan ku kaydsan xogeynta xafiiska xogeyaha taas oo cadaatay in dukumiinti lahaansho uusan ka jirin gacan amni ah iyada oo ay cadeymo u yihiin dhacdooyin sanada kala duwan soo dhacay oo ay u dambeysay kooxda Kingis X Jasiira qodobka afaraad waxaan xiriirka la wadaagnay in dib loo dhigo koobka Janna Daawud si loo wada hadlo qaladaadka jira laakiin maamulka uu ka dhaga adeegay codsigaas Congress-ka qodobka shanaad xiriirka waxaan la wadaagnay in club licensiga dib loo dhigo inta laga helayo xogeyn lagu wada qanci karo ama oo mas'uuliyadda qaadi karta qodobka lixaad isku aadka tartamada oo aysan koox goobjoog ahayn taas oo muhiim u ah is-aaminaadda maamulka iyo Congress macnaha tartanka waa la iska soo cilaamiyay wax la isku aad lama sameyn qof lama wicin lagalama tashan isku aad habeenkii 6 saac soo dhacay oo leeyahay inta la isku soo aadiyay saarto in si jiroonyaasha xaafadaha ka jiro marka waxaan codsanay in tartanka Janna Daawud loo helo sponsorship si uu tartanku u wanaagsanaado arrinkaas ilaa iyo hadda uu suura geli waayay macnaha Janna Daawud dhaqaalaan lama dheeli karo tartan laba qabto ilaa in dhaqaale hela maahan markii loo bandhigo leeyahay war tartanka xiriirka codsanay in dhaqaale raadiyo ka bacdina tartanka la qabto wali wax jaban laba sin isku aad la soo diray iyadoo wax wargelin wax qortuura jirin waxba aysan jirin qodobka 8aad ciyaaraha kubadda cagta
dumarka waa in lagala tashadaa kongareeska ma la aqbali karo in cid gooni ah ay go'aamiso tartankaas midda labaad tartankaas kubadda cagta ee dumarka maanta Soomaaliya suuragal kama aha maanta Soomaaliya suuragal kama aha xaalad amni iyo mid dhaqan iyo mid dhaqan kala jar iyo mid islaam inta dhaqan suuragal kama aha in maanta la qabto tartan kubadda cagta oo dumar ah wadanka xalis ogna ayadana waa uga digaynaa arrintaas inay sadhicin qodobka 9aad ayaa cadeynaya in ay direen qoraallo ay qoraallo loo diray ayagu saxiixeen ay ku wada saxan yihiin 25 October la diray naadiyaasha ay qoraal diray la saxiixay 25 October qoraalkaas oo loo diray xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta wasaaradda dhalinyaradana waa loo diray ciyaaraha ogeysiina la siiyay waxaana cadeynaynaa in qoraalkaas si rasmi ah naadiyada u direen waana sababta loo hakiyay tartanka Janad Daawud oo ciyaaraha loo joojiyay qoraalkaas ujeedadiisu ahayd cabashooyin laga qabo habsami u socodka tartanka iyo sharciyada jiritaanka naadiyada ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta taas oo haddii aan si sharci ah loo saxin ay adag tahay in ay wada shaqeeyaan naadiyada iyo xiriirka sidoo kale waxaan rabnaa inaan muujino walaacyada ku saabsan furfurnaan la'aan macnaha markii de organization uu jiro waxaan rabaa inuu transparency u shaqeeyo u fuuyahay furfuran oo maartay maca kooxaha iyo xiriirka ay isku fahmi karaan wada shaqeyn karaan furfurnaan la'aan laga cabanayo wada shaqeyn la'aan oo waxa muuqata macnaha in uu jiro ku takrifal awoodeed oo wax loo aabiyeelay aysan jirin arrintaas marka kooxuhu ka hadleen uga hadlayeen bahalkii in wax laga bedelo shuruucda iyo xeerarka u yaala xiriirkan in lagu dhaqmo si uu macnaha u noqdo wax la aamini karo oo la wada shaqeyn karo transparency soo waxaan kaloo baaq u diraynaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maadaama kooxaha iyo xiriirka haddii ay isqabtaan waxa kaliya u dhaxay kara waa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaan ka codsanaynaa inay soo farageliyaan arrinta meeshan ka jirta oo ah isboortiga Soomaaliya macnaha intii muddo adiga dhowr sano wuxuu ku socdo hoos u dhac ku socday waxaan rabnaa isboortiga Soomaaliya in la horumariyo waxaan rabnaa xiriirku inuu tooso waxaan rabnaa in Soomaaliya isboortiga ay heerka gaarto kooxuhuna ay dhismaan wasaaraduna ay shaqadeeda qabsato waxaa marka muuqata in xiriirkii iyo maamulkiisa ay takrifal wadaan ay awoodooda ku takrifalayaan kooxihii iyo maartay horumarka isboortiga ay dib u dhac u keenayaan marka waxaan ka codsanaynaa wasaaradda inay soo farageliso oo ay wax ka qabato dhibka maanta meeshan jira haddii la isqabto qoortii labada garbood luquntii labada garbood u dhaxaysa waa wasaaradda